ayuun baaba la yidhi haddana dee ay howlo kala yimaadeen oo la yidhi heshiiskii waxba kama jiraano damac baa aad na soo kala dhex galay damaciina waa kaa ilaa maxkamad la isla yimid horta runtii waa nasiib darro in maxkamad la isla yimaado ma ahayn in qof walba halkiisa ku joogaaba ay hay'adu ku iimaansado laakiin way wanaagsan tahay in sharciga la raaco maanta go'aanka halka ka soo baxay waxa weeyaan heshiiskiina baa hirgelinaysa ما هذا هشيس بالديدي دونا يوحاسما يوالله قيمينا يا حسب قال قيمينا يا يوحما هشيس بالقلي هشيس كوا اللي هرجلنا يا وين يعني وقوان ويا محكمة جدي طبعا قابو الله بدر نعة أيا هرجلنا أيا اللي يري قد بدي هراء جد ديوان قلت يا ساعات قرن صوص صارين سيدي بالله هرجلي حسب يقول الله بقربها الله بقرب صوص صارين لكن آديات بان runtii uga xumaynaan halka shacabka Soomaaliland iyo waxna ay daraamo noqdaan oo maxkamadda la isla tago laakiin waa damaca siyaasadda raga qaarkood kursiga markay eegaan ayay waashaan oo runtii ma eegaan bini'aadanimada iyo wixii lagu heshiiyay laakiin kul hadii imika ay tani dhamaatay insha Allah waxaan rajaynaynaa bal in cid walba ay iimaansato anaga amar baan la siiyay amarka waa ku fulinaynaa qaybtayada waa ka soo baxaynaa shirweynuhu waa u diyaar garoobaynaa وانا كو قنعسنahay inkastoo aan go'aamadii aynaan wali si fiican u arag oo la yidho aad bay u dheeriyeen laakiin ilaa imka intaan aragnay war waxa la yidho shirweynihiina qabsada heshiiskiina ha lagu ansixiyo waa amar hadda waa heshiiska lagu ansixiyo ma aha wala qiimeynaya wala diidi karaayo waxa waa hal la galiyo weeyaa sidii hore loo ansixiyo weeyaa wassalaamu calaykum.